الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. suuriya waa dal dhaca dhulka barakaysan ee shaam xilligan la joogana waxa uu ka mid yahay waddamada dhaca dhulka loogu yeero bariga dhexe wuxuuna ku yaalaa galbeedka qaaradda aasiya waqooyi waxaa ka xiga dalka turkiga halka ciraaqna uu kaga beegan yahay bariga koonfurna waxaa ka xiga dalka urdun galbeedna waxaa kaga aadan filistiin lubnaan iyo badda mediteraneanka masaaxo ahaan wuxuu dalka suuriya ku fadhiyaa beddan 185,180 kilomitro iskuweer ah marka laga hadlayo juqraafi ahaan dalka suuriya waxa uu ka mid yahay dalalka leh buuraha iyo saxaraha gobollada kala duwan ee waddankaasina waxa ay ka kooban yihiin ilaa 14 gobol magaalooyinka ugu caansan ee dalkan waxaa ka mid ah dimashq oo ah caasimadda ximis xalab xamaah allaadiqiyah dooma darca arraqa idlib albaab iyo kuwo kale marka dib loo raaco taariikhda wuxuu dalka suuriya ama shaam ahaa goob ay saldhigteen dowlada iyo imbaraadoriyaad qadiimi ah oo dunidaas soo maray ruumaanka ayaana marku amar ku taaglayn jiray dhulkan ilaa markii dambe uu islaamku ka dulqaaday markii la dhisay dowladdii islaamka ee saldhiggeedu ahaa magaalada madiinah waxay kolonyooyinkii faatixiinta ahaa xoogga isugu geeyeen sidii loo xurayn lahaa dhulka shaam looguna soo dabaali lahaa tawxiidka hadafkaas sarreeya awgeedna waxaa shaam ku aasan boqolaal ka mid ah saxaabada ridwaanullaahi calayhim wakhtigii uu dowladda islaamka hogaaminayey khaliifkii caadilka ahaa ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu ayuu islaamku ku jilba fidsaday inta badan magaalooyinka shaam gaar ahaan suuriya saxaabigii jaliilka ahaa ee abuu cubayda ibnu jaraax ayaa hogaaminayey ciidamadii muslimiinta ee furtay badi magaalooyinka waaweyn ee suuriya waxaana markaasi kadib ay shaam noqotay wilaayo ka mid ah wilaayaadka ugu muhiimsan dowladda islaamka waxaa dhulkan degay jiilkii saxaabada ee jihaadka ku gaaray meelo fog oo caalamka ka mid ah taabiciyiin badan ayaana ku dhashay oo ku barbaaray kuwaasoo iyaguna sii ambaqaaday jihaadkii ay ku dhasheen kuna soo barbaareen markii uu dhammaaday cahdigii khilaafadii raashidada ahayd waxay shaam ama suuriya noqotay saldhigga iyo xarunta dowladdii umowiyiinta ee uu aas-aasay saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu dimashq ayaana in ka badan 100 sano oo xiriir ah looga talinayay muslimiinta kolonyooyinkii faatixiinta ahaana laga sagootinayey waxaana ay noqotay xarunta xadaaradda iyo ilbaxnimada iyadoo ahayd markas laga doonto culumta shareecada islaamka maadaama ay degganaayeen inta badan culimmada muslimiinta ee ahlu xadiidka ahaa dowladdii cabbaasiyiinta ee iyaduna qarniyo maamulaysay muslimiinta ayaa dimashq ka beddeshay caasimaddii muslimiinta baqhdaad ayayna saldhigteen xilligaas inkastoo culeyskii dowladnimada laga dulqaaday shaam haddana makaanadeeda marna may nuqsaamin markii ay yaraatay awooddii dowladdii cabbaasiyiinta waxay shaam ama suuriya noqotay xarunta dowlado yaryar oo marna taabacsanaa cabbaasiyiinta marna ahaa kuwa madax bannaan dabayaaqadii qarnigii 11aad saliibiyiintii ka soo duulay yurub ayaa qabsaday qaybo ka mid ah shaam halkaasna waxay ka aas-aaseen imaarado saliibi ah laakiin halgan jihaadi ah oo 10 sano socday waxay muslimiintu ku guulaysteen inay mar kale xoreeyaan guud ahaan dhulka shaam oo uu ka mid yahay dalka suuriya wuxuu dalka suuriya ka mid ahaa meelihii martigeliyey duulaanadii sida daadka oo kale ahaa ee tataarka ciidamo uu hogaaminayo holaako ayaana xasuuqyo arxan daran ka geystay magaalooyinka dalka suuriya cahdigii dowladdii cuhmaaniyiinta waxay suuriya ahayd goob ka agdhow taliska dowladda dhexe ee islaamka maadaama cuhmaaniyiinta caasimadoodu ahayd istanbuul oo ku taalla dalka turkiga markii ay yaraatay awooddii cuhmaaniyiinta kadib waxay suuriya ka mid noqotay meelihii ay qabsadeen reer galbeedka faransiiska ayaana qayb ahaan qaatay dalka suuriya laakiin waxaa looga hortegay halgan adag oo ku qasbay inay dalka ka baxaan hase ahaatee waxay samaysteen xulafo iyaga wakiil ka ah dhaqan ahaanna taabacsan kooxda calawiyiinta ayaana inta badan talada dalka suuriya gacanta ku qabtay
wixii ka dambeeyey aasaaskii Suuriyada cusub. dagaaladii dhacay 1967 ilaa 1973 wuxuu dalka Suuriya ka mid ahaa dalalkii Carbeed ee dagaalka magaca ah la galay Yahuudda xoogga lagu dejiyey dhulka Filistiin. ugu dambeyntiina waxay Suuriya dagaalka ka baxday iyadoo qayb ka mid ah Suuriya gaar ahaan buuraleyda Al-Jawlaan ay Yahuuddu la wareegeen. 1979 waxaa dalka Suuriya ka bilowday kacdoon jihaadi ah oo ay horboodayeen culimadii Ikhwaanul Muslimiinka, waxaana kacdoonkan uu ku soo dhammaaday xasuuqii caanka ahaa ee ka dhacay Xamaah, kaasoo nidaamka Nusayriyadu u geystay dadka muslimiinta. 2011 wuxuu dalka Suuriya ka mid noqday waddamada Carbeed ee martigeliyey kacdoonkii Guga Carbeed ee looga soo horjeeday hogaamiyaashii keligii taliyaasha ahaa ee ka arriminayay dunida Islaamka. kacdoonkan ayaana suuro geliyey in gacanta nidaamka laga saaro magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Suuriya. كل ما في الكون فان غير رب العالمين، نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات.